maantay aanu maqlayna ama haddii Ilaahay ku soo ogol yahay na soo gaarahay waxyaalaha kale to ayaguna muuqda oo ayaguna dhabta ah ayaduna ay noo muuqanayaan waxyaalaha kale to dhab ah oo ayaguna aan maqlayno ayaduna ay kamid yihiin waxa weeye inaan maqlayno saddex xidnood oo la keenayo oo markii la keena mid aan kala baxayno in haddii Ilaahay ku soo ogol yahay dhaqankii wixii soo horeeyay iyo maamulkii Jubbaland inahaas ayada ah inay naga soo gaarahay arrintaas ayada ahna waxa soo joodinayo dhaqankii ma ahaane waxa weeye waa Jubbaland weeye waxa arrintaas ayada keentay oo soo joodisay inta markii laga gudbo haddii markii la yiraahdo saddex qofood baan keenaynaa mid ka alla keenay mid baan la baxaynaa waxa dhaqan looga baahan yahay ma sheegi karta ninka musharaxa oo maamul haya oo yiraahdo saddex baan keenahay yaa la keenayaa mid baan la baxaynaa waxa looga baahan yahay marka dhaqan muxuu yahay waa aftiriyo weeye aftiriyana dhaqan ma qaato dhaqan wuxuu qaataa nidaam uu leeyahay oo ummadiisa iyo shacabkiisa wakiil uu oga yahay waxaan hortiina iyo adduunka iyo qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed inta baan u sheegaynaa maalin walba waxaan munaasib ahayn dhaqanka Soomaaliyeed ma qaadanayo waxaan ka soo horjeednaa oo aan marna qaadanaynin marna aan raali ku noqonaynin anoo afka reersada ku hadlahayo saddex qofood keen mid baan la baxayo arrintaas ayada ah waxaan uga digahayaa cid kasta oo isku dayda waan uga digahayaa dadka musharaxiinta ah oo Soomaaliyeed oo halkaan musharaxiinta ka ah waa dad xaq u leh qof walba inuu tartamo qof walbana wuxuu xaq u leeyahay wixii xildhibaano ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhaqanka ah oo reer Jubbaland ay keenaan dadkaas ayada ah nin walba inuu nasiibkiisa ka qaato nin walba nasiibkiisa inuu ka qaato dalka wuxuu ku burburo waxa weeye sharciga iyo nidaamka umadu ay leedahay oo ka weyn in lagu dhaqmo haddii sharci uu qof asagu samaystay oo jeebkiisa uu ka samaystay uu la yimaado taasoo kale ta waxa dalka uu ku burburo weyn annagu haddaan nahay dhaqanka Soomaaliyeedna ma aanu ogolin in Jubbaland la burburiyo mana aanu ogolin in Jubbaland la haleeyo annagu mowqifkanaga waa cad yahay imaatinkanagi baanu soo sheegnay shacabkii Soomaaliyeed oo aeroboortka yimid baanu u sheegnay adduunkaanu u baahinay qaranka Soomaaliyeed baan u baahinay dawladda federal dawlad goboleedka Jubbaland baanu u baahinay waxaanu ku halqabsanay wax rasmi ah oo jira federaalka doorasho galay waa koofidii sare oo qaranka Soomaaliyeed dhaqankii wuxuu keenay qof buu keenay dhaqankii Soomaaliyeed wixii ay keeneen madaxweynuhu doortay saasaana uu ku dhismay maamulka jira oo qaranka ah ilaa 12kiina saasaa dhaqanka hawsha gacanta ugu hayay aadna aan ugu mahadcelinayo inuu qaranka dhaqanka Soomaaliyeed inuu maanta tiir u yahay shacabka Soomaaliyeedna tiir u yahay dhaqankuna uu yahay salaadiinta ugaasyada iyo garbahoodaba ay yihiin tiirka u dhaxeeya qaranka iyo shacabka Soomaaliyeed u dhaxeeya inta markaanu ka gudubno inta dawlad goboleed oo kale oo afarta ah ayaguna waxa lagu soo doortay oo caawa ku amaanayno waxa weeye shacabkii intii ka wakiilka ahay oo dhaqanka ahay oo hawshaas lahay inuu nin walba uu soo xulay qofkii jifadaasi ay lahay tiradii ay lahay inay inta soo xuleen oo ayagu baynkooda ay ku soo xuleen soo gudbiyeen isla mar ahaantaasna ay gaareen inay xildhibaannimo ay ku ansaxaan ayna doortaan dawlad goboleed ayaguna madaxdeeda ay doortaan inta ayada ah
wax ka duwan oo Jubbaland ay yeelan kartaa ma jirto sababtoo ah qaranka Soomaaliyeed bay kamid tahay dagaamadiisa iyo dawlad goboleedyadiisa iyo qaranka federaalka ah iyo inta iyo ayaduna kamid yahay adduunka waxaan u sheegaynaa inaan arintaas ayada ah ayna suuragelin waxa ayadana sidoo kaleeto aanu sheegaynaa dhaqanka nidaam buu leeyahay nidaamka uu leeyahayna in sida uu yahay loo raaco ee qof baan anigu jecelahay iyo qof baan anigu wataa dhaqanka Soomaaliyeedna u sanahay intaas ayada ahna waan ka digahay intaas haddaan ka gudbo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saaka intii aad halkaan aad fadhideen iyo intii aad Ilaahay ku soo ogol yahay waxaad halkaan ku haysaan sida kaliya ma ahane waxa weeye waa dantii ummadda Soomaaliyeed oo dawlad goboleedka Jubbaland weeye intiinaan wanaaga aad wadaan iyo inta kale too dhaqanka ah iyo shacabka ah wanaaga aad wadaan oo isu taga oo mid noqda weeye waxa ay Jubbaland ay ku dhismayso qarankana uu ku dhismi karo aad iyo aad yaanu idin salaamaynaa mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa ayadoo horeyna aan ugu daray dhammaan qaybaha bulshada intay ka kooban yihiin gabdhihii Soomaaliyeed oo haddii Ilaahay ku soo ogol yahay gabdhihii reer Sada ay kamid ahaayeen oo adinku aad kamid ahaydeen oo caleemaha qoyan lagu soo dhaweeyay ilaa iyo haddeerna ku jira oo u taagan oo aan seexanin sidii yacni maaragtay hawshaan ay gacanta ay ugu hayn lahaayeen idinkugu qaadimi lahaayeen oo fadhi kasta iyo gogol kasta ay idinkugu qurxinayaan ayagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinahay waxaan hadalkaygu ku soo gabagabaynayaa intii anaga naga soo horeysay oo dhaqanka ahay iyo wixii siyaasi aha oo beeshaan aha ayaduna inaan tala midaysan inaanu ku aragno oo aanu ku tashanno oo aan midnimo reer Sade iyo midnimo ehel inaan ayaduna aan gaarno oo anagoo mid ah aynu wixii aynu leenahay aynu raadino wixii anagu aan haysano oo anagu aan leenahay oo meel noo yaalo dadka naga iyo ibnaha naga ay noo hayaan hadee waaba wax meel noo yaalo wixii tabasho ah oo kale oo reer Sade ku jiraan inaan ka xisaabtano ayaduna wixii meel mar ahna aynu Ilaahay ku soo ogol yahay aan wada qaadano yaan u soo joodinayaa wixii dhaqan ah oo Sade ah oo naga soo horeeyay iyo wixii dhaqan ah oo maamulka dawlad goboleedka halkaan jooga gacanta ku hayay oo ka tirsanaa ayaduna inaan cid kasta aragno ujeedadanaduna ay tahay inaan si midnimo ah aynu u wajahano wixii danta ah oo cudaan ay lahayd wixii dan ah oo Jubbaland ay lahaydna halkaas ayada ay ka dhisanto yaan ayaduna soo joodinahay